asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii nuxurka buugaagta. maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa buugga la magac baxay thinking fast and slow, u fekeridda degdega iyo degganaanta. buuggan waxaa qoray Daniel Kahneman oo ah qoraa dhaqaalayahan iyo khabiir nafsaani ah. buuggani wuxuu ku tusayaa sida labada nidaam ee maskaxdaadu ay si joogto ah ugu dagaalamayaan xakamaynta dabeecadaada iyo ficiladaada, oo ay ku barayaan qaabab badan kuwaasoo horseedaya qaladaadka xusuusta, xukunka, go'aamada iyo waxaad ka qaban karto. wuxuu qoraagu buuggan ku soo bandhigayaa 3 qodob. 1. dabeecadaada waxaa go'aamiya 2 nidaam oo maskaxdaada ku jira, mid miirqab ah iyo mid otomaatig ah. 2. maskaxdaadu waa caajis, sidaa daraaddeed waxay kaa celinaysaa inaad isticmaasho awoodda buuxda ee caqligaaga. 3. marka aad go'aan ka gaarayso lacagta, caadifadaada guriga kaga tag. waxaa jira 2 qaab oo aan u malaynayno labadaba go'aanada aan qaadanaa inay ku salaysan yihiin, waa dhaqso iyo habfikir deggan. Kahneman wuxuu ku soo gudbinayaa buuggan 2 aragtiyood oo ugu yeedha nidaamka koowaad iyo nidaamka labaad oo kala ah nidaamka fikirka degdega ah iyo nidaamka sababaynta deggan. nidaamka koowaad waa nidaam degdeg ah, isdaba joog ah, laablakac ah, miirbeel ah. nidaamka labaad waa nidaam degganaan ah, dadaal badan, isdaba joog ah, macquul ah, xisaabsan, isla markaana miir leh. qodobka koowaad, dabeecadaada waxaa go'aamiya 2 nidaam oo maskaxdaada ku jira, mid miirqab ah iyo mid otomaatig ah. haddaan ku siiyo ul iyo kubad ay qiimahoodu yihiin $1 iyo 10 senti, oo aan kuu sheegay in ushu ay $1 ka badan tahay kubadda, muxuu noqonayaa qiimaha kubaddu? haddii 10 senti isla markiiba maskaxdaada ku soo dhacday, markaa waxaad khiyaanaysay waxa qoraagaya nafsaaniga Daniel Kahneman ugu yeedhay nidaamka fikirka degdega ee koowaad. laakiin nidaamkaaga labaad, haddii aad si deggan u isticmaasho garaadkaaga sababeeyaha ah, waxaad xaqiiqsanaysaa in haddii qiimaha kubaddu ahaa 10 senti, waxay noqon lahayd qiimaha ushu 1 iyo 10 senti, oo ay wadarta guudna noqon lahayd 1 iyo 20 senti. qodobka labaad, maskaxdaadu waa caajis, sidaa daraaddeed waxay kaa celinaysaa inaad isticmaasho awoodda buuxda ee caqligaaga. ka soo qaad nidaam warbaahineed oo isku dhan, kaasoo ka kooban warfidiyeen iyo tifaaftire. warfidiyeenku wuxuu si joogtaa u soo qoraa sheekooyin, kadib wuxuu u soo gudbiyaa tifaaftiraha. tifaaftiruhu uma hayo wakhti ama tamar uu ku xaqiijiyo isha laga soo xigtay sheeko kasta, waxaanu si indhala'aana ugu kalsoonada warfidiyeenka, wuxuuna soo bandhigaa sheekooyinka aan la xaqiijin isha laga soo xigtay. bandhigga kadib wixii dhaleecayna ee ka yimaada tifaaftiruhu wuxuu difaacaa warfidiyeenka, xitaa hadday been abuur ahaayeen xogtoodu. sidaana waxaa ku burburaa warbaahinta oo dhan. qodobka 3. marka aad go'aan ka gaarayso lacagta, caadifadaada guriga kaga tag. Kahneman wuxuu ururiyey koox ardaya oo aanu soo xulan, waxaanu siiyey koob cusub, kadib wuxuu weydiiyey inta ay rabaan inay ku iibiyaan koobka. kadib markii uu diiwaan geliyey jawaabtoodii, wuxuu soo ururiyey koox kale oo aanu kala xulan, waxaanu weydiiyey haddii ay rabaan koobka ama isugeynta lacagta ay moodayaan inay u dhiganto qiimaha koobka. kooxda koowaad oo ah iibiyeyaashu waxay ku qiimeeyaan koobka $7.12 senti. kooxdii labaad oo ah iibsadayaal oo iyagoo aan dooran koobka, waxay si aan laablakac ahayn oo miirqabha ugu qiimeeyaan koobka $3.12 senti. koobku waa isku mid, laakiin waxa kala duwan halka ay labada dhinac ka kala taagan yihiin. taana wuxuu ku sababeeyey qoraagu loss aversion and endowment effect. loss aversion waa in aanu qof ku dhiiranin faa'iido isagoo ka cabsi qaba khasaare. tusaale ahaan, waxaa fiican inaad waayin $5 halkii aad heli lahayd $5. endowment effect waa sida ay dadku u jecel yihiin inay alaabtooda ugu iibiyaan qiimo sare, laakiin marka iyagu wax iibsanayaan inay ku helaan qiimo hoose.